dhammaadkii dagaaladii lagula jiray keligii taliyihii iyo taliskii macangaga ahaa ee Siyaad Barre 1991 ay ahayd markii lagu xoreeyay dhammaanba dalka oo dhan iyadoo lala soo galay dagaal adkaa oo socday in ka badan 10 sano. dib u xoreyntii kadib waxa gacanta lagu dhigay dal laga burburiyay dhammaan kaabayaashii nololeed oo dhan. dawo ma jirin, biyo nadiif ahina ma jirin, iskuulna ma dhisnayn, wax raad nololeed oo muuqday haba yaraatee ma jirin. balse dadweynuhu waxay ku faraxsanaayeen iyagoon waxba hayn inay jabiyeen taliskii rajiimka ahaa ee u geysan jiray xasuuq iyo tacadiyada kala duwan, dibna ula soo noqdeen xornimadoodii 1960kii ay heleen. runaantii ma sahlanayn duruufihii adkaa ay soo mareen bulshadu wakhtiyadaas lagu jiray halgankii hubaysnaa ee lagu xoreeyey dalka. haddii bulsha midoodu kuna heshiiso sidii ay himiladooda u rumayn lahaayeen, waxaa tusaale weyn u ah dib u heshiisiintii beelaha iyo ku dhawaaqistii gooniisutaagga jamhuuriyadda Somalilan ee ku qabsoomay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco. waxaan filimkan ku eegi doonaa sidii loo nabdeeyey beelaha, go'aankii la soo noqoshada madax bannaanida Somalilan iyo waayihii shirka Burco iyo ugu dambayntii duruufihii adkaa iyo dareenkii bulshada ee 1991kii. kadib markii SNM ay dib u xoreysay dalka, waxa markiiba saraakiishii iyo odayaashii dhaqanku ku dadaaleen in la abaabulo shirweyne qaran oo lagu heshiisiyo beelaha wadadaga dalka, isla markaana la samaysto maamul iyo dawlad lana soo celiyo kala dambayntii dawladnimo. waqti dalku u burburay ee u dhacay nidaamkii Siyaad Barre ee khaas ahaan dadkii gobollada waqooyi ee la oran jiray deganaay dulmiga iyo dhibaatada badan ay ka sheeganayeen waa kii burburay. xarakadii SNM nawatii soo gashay dalka dhamaantii qabatay. dabada waxa loo baahday nidaam in la sameeyo oo la dejiyo si ummadii hoggaan loogu sameeyo. Berbera ayaa hortaan lagu qabtay shir yar oo kooban lagu qabtay. intii aan la isugu iman shirkii Burco, waxaa jiray shirar ka horreeya oo ka dhacay magaalada Berbera. shirkaasoo ujeedadiisu ahayd gogol xaarkii nabadeynta beelaha dhexdooda, waxaana loo ballamay shirkii Burco in lagu gunaanado dadaalada nabadeynta laguna dhisto maamul xaliiban oo cid walba ka muuqato. markii ay dawladdii meesha ka baxday oo ay SNM ku guuleysatay inay maamusho gobolladii waqooyiga, waxa la isugu yeeray markii ugu horeysay Berbera baa la isugu yimi. Berbera markaa nabadii halka asaaska loogu dhigay, loona ballamay in May la isugu yimaado shirka Burco. 1991kii ayaa shirkii Burco la guda galay iyadoo ay ku dhammaayeen dhammaan beelaha wadadega Somalilan. wuxuu ku bilaabmay jawi degan, bulshaduna waxay aad ugu dhegtaagayeen maxsuulka ka soo bixi doona shirka. marka aad Burco waa la isugu yimi, ufuudii oo dhan way isugu timi. bari waxa ka yimi laba garaad oo ugu waaweynaan dhulbahantaha markaa beesha dhulbahantay oo garaad Cabdiqani iyo garaad Saleemaan iyo ufuuday wataan. Burco la isugu yimi, shirkii baa la galay. markaa shirkii waxaa gudoominayay Xasan Ciise Jaamac baa gudoominayay. adigu shirkii beelihii baa loo saaray gaar oo la yiri isu taga, soo wada hadla, wax ku soo heshiiyay inaanu bari iyo galbeedba dadkii reer Somaliland uga yeerno, odayaashii ka casuubno in aanu halkaa ku soo gunaanadno colaadii soconaysay 10 sanadood ee waddanku habsatay. shirka Burco go'aamadii ka soo baxay ee aanu halkaa ku wada qaadnay wuxuu shir qaran buu ahaa. SNM baa qaban qaabisay, wada socotaayo taariikhda clipska iyo wixii fiireeyay waad aragto ana gudoominayay.
shirkaa burco waxa weeyaan waxa ay Somaliland dheer tahay Soomaalida inta kale taa shaka kuma jiro waa arrin taariikhi ah weeyaan waxay dheer tahay Somaliland Soomaalida kale weeyaan waxaanad ku garanaysaa inay sidaa tahay go'aamadii ka soo baxay sidaa daradeed baa lagu heshiiyey burco ayaa lagu kulmay waxaa burco lagu heshiiyey in dawladda halkaa lagu aasaaso waxa la soo jeediyo dad badan ku hor u badnaayeen in la yiraahdo waan goosanay la yiraahdo loo badnaa laakiin gudidayadii boorma ka tagtay ayaa tiri ereyga aynu bedelo goosashada ah waxaynu ku bedelaynaa dal qaran baynu ahayn 60kii walaalahay koonfur waan ku beernay waxaan la soo noqonay xornimadeennii baan la soo noqonay aynu u bedelo waa loo wada reeyay ereygii sidii baan lagu heshiiyey in madax banaanidii Somaliland la soo celiyo Somaliland tii gobonimada ka qaatay Ingiriiska ay xamar ka soo go'do oo ay sidii awal ba ahaan jirtay wadan madax banaan oo goonidiisa u taagan oo cagihiisa ku jooga ay u noqoto Soomaaliland kale waa ereygan lagu yiraahdo Afghanistan in la soo celiyo sovereignty Somaliland la soo celiyo madax banaanidii Somaliland wala soo noqdo ee xamar la geeyay wala soo noqdo taasina qodobka labaad bay ahayd oo aynu jamhuuriyad iskeedu taagan aynu samaysano sidii awal babarkii Ingiriiska aynu goorida ugu ahayn Soomaalida inta kale waxa la goostay 2 sanadood xarakada SNM madaxdeedii oo kolka Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Xasan Ciise jaamac ahaa inay 2 sanadood qiyaadada hayaan oo talada iyagu hayaan gabagabadii shirka waxa ergadii shirgudoonkii shirku isku afkarteen oo la isku raacay dhowr qodob oo muhiim ah waxa ugu mudnaa qodobkii la soo noqoshada madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu dhawaaqay 18 May 1991 wuxuu ahaa dareen farxad aan xad lahayn waayo aniga oo kale iyo raggii aan wada soconay 10 sanadood oo rafaada waxaanu keenta ku jiray Soomaad kale dhalinyarada ku oran jiray kaadida soo cabay Soomaad kale duruuf adag baan soo maray oo intii ilaahay aan jibta lagu gashay oo imtixaan ah oo rafaada marka ilaahay baan ugu xamdi naqanay wixii naga dhamaadeen hawshii naga dhamaatay waanu nafis bay ahayd farxad bay ahayd xaaji aadan axmed diiriyo oo ku magac dheer aadan baradho wuxuu ahaa mas'uulkii maalinta akhriyay heshiiskii beelaa kuna dhawaaqay la soo noqoshadii madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland xaaji aadan waxaan xusuusiyey dareenkii bulshada ee 19 markii uu ku dhawaaqayay qodobadii lagu heshiiyey dareenka dadka horta shucuurta dadku wax la qiyaas kara ma ahayn wuxuuna misaal kaga soo qaadayaa anigaygani markaan misaal iska soo qaado maalintii aanu hadlayay maanta ma hadli karo waxay shucuurta markaan aniga igu jirtay iyo tamaanta joogtada oo kale laba yani waxa weeye waa qeyraal ayaa dadku wada qeyraysnaa aadna waa loo faraxsanaa waxa lagu faraxsanaa waxay ahayd go'aanimadii deegaanaga luntay 60kii oo dhib badan loo soo maray oo halgan badan la soo galay oo loo soo dhintay oo loo soo burburay loo soo baabaay oo dalkeenu u rogmaday oo wixii boqolaalka sano aynu soo dhisaynay baabeen oo halyeelada u dhinteen oo magaalooyinkeenu u burbureen oo maxaan ku dhahayn waxa soo dhiba waxaan dil carab lagu koobi karno dhiba loo soo maray ayay ilaahay nagu guuleeyay maanta helay oo hananay marka taas baa lagu faraxsanaa farxadaas lagu jiray shucuurta dadku marka wax la qiyaas karo ma yahayn haddaad eegto maanta maalintii dadka sawirada haddaad eegto shirka fadhiyay dad wada basiiraysan bay dahay xagga muuqaalka xaaji aadan waxa uu nooga sheekeeyey dareenkii farxadeed ee bulshada 19 markii lagu dhawaaqay go'aamadii shirka balse isagoo sii watay hadalka ayaa marqura waxa isbedelay shucuurtiisii isagoo isbarbar dhigay qabyaaladda baahsan ee maanta jirta iyo 19 midnimada bulshadu ay lahayd iyagoo saboola haddana waxa qiimo weyn ugu fadhiyey dowladnimada ay hanteen iyo xasilinta nabadgelyada dalka oo dhan
ilmaha waxa ka dhaxa weey xusuusta dib noqoshada wixii la soo maray iyo maanta saynu ugu dheeleelayno shukri sugulle waxay ka mid ahayd haweenkii ka qayb galay shirkii burco waxay ka mid ahayd xubnihii haweenka ergada ahaa ee shirka burco waxaan ugu tegey magaalada burco oo ay ku nooshay waxay igu oggolaatay inaan waraysi kula yeesho goobtii 19 shirku ka socday waanu gabowno cagaha tabcaan kan ahay ma naga fuuli karna halkii abbay u wallahi ma dhaanto walaana ayaga halka dhis dhagax yar baan dhigan doonaa waxay u suurta gashay horta wixii ilaahay ku fududeeyay adiguna aad ku tala gashaa de way qabsoomayaan ilaahay qadarkiisa ku qabsoontay waxay ku lagu qabtay wixii aynu haysanay ee aynu la soo galay ee aynu maxaan ku dhahday waxna inaga soo horeyn waxna laynagu ma caawino laynama siin dadkii meesha ka yimee soo galay waxay siteena ma jirin ilaahay qadarkiisa ku fududaatay lagu fadhiistay maskax midaysan iyo qalbi niyad wanaagsan oo saafiya ayay dadku la yimaadeen sidaasay ku suurta gasho lagu fadhiistay 2 bilood iyo dhowr iyo 10 cishana waa loo fadhiyay cid ina caawinaysa iyo meel wax laynaga siinayna ma jirin jeebabka dadkii wixii ku jiray uun baadee maxaan ku dhahdaayay lagu shirka lagu galay oo lagu fadhiistay waxaan ka xasuustaa dadku meel uun bay ahaayeen 2 meelood ma jirin wax isu dhow ma dadku waxay ahaayeen dad midaysan qalbiga ka midaysan maskaxda ka midaysan wax ku midaysan isku mid ah maxaan ku dhahdaayay wax kaliya ah maantana de waxay taagan tahay qofna loo sheegi maayo waynu aragnaa qof waliba halku taagan yahay buu ku ooyay wax kaliya baa la doonayay ummaduna mid kaliya bay ahayd maskaxduna meel kaliya bay ahayd wax aan la isu keeni karin oo isu dhaweyn oo la isu barbar dhigi karin way aad iyo aad u kala fog muuse nuur wuxuu ka mid ahaa mujaahidiinta SNM dib u xoreyntii kadib wuxuu ahaa mas'uulkii amniga iyo ilaalada u qaabilsanaa goobtii uu shirkii burco ka socday waxaan ahaa halgabayaashii la dagaalamayay rajuumkii markaa uu dadku dhibsaday kuna guulaystay maanta nasiibkiisu ku simay inuu nool yahay maalintaana waxaan saarnaa gaadiidkii ilaalinayay goobta shirka lagu hayo ee lagaga dhawaaqayo dawladda Soomaaliland anugu nin sarkaalana waan ahaa markaa dareenkayguna waxa raggii waddanka ku dagaalamayna waan ahaa raggii jeclaa inay qabsadaan dhulkooda oo mar uun cagaa ay dhigaanna waan ahaa in xornimo ku dhigaan iyo nololba nolosheedii markaan ku soo gaadhay galabtii waxaan ahaa raggii gaadiidka saarnaa markii shirka halkaa lagu qabanayay gaadhi baan saarnaa qori saareen waan meelbisgareynay oo aan lahaa farxadda dabeedna rasaasta u bilaabay gaadhigaas markii lagu dhawaaqay waa
oo dan ka qaado wuxuu ahaa hubbigaygu iyo jacaylkayga iyo niyadeyda iyo kalsoonidayda ku dhawaaqidaasaa raacsana marka anigu waxaan ahay hooyooyinkii waddanka soo galay aad iyo aad baa maalintii aniga muruga ii haysay markii calanka Soomaaliland la taagay beelaha Soomaaliland oo dhan way isugu yimaadeen yacnigii waxay isugu yimi ilaa daraf irgooyin aad u fara badan baa yimi magaaladuna waxay ahayd magaalo aan dhisnayn oo maxay tahay iska burbur badan ka muuqdo oo dhibaatooyin badan ka jiro laakiin anagu waxaan u haynay magaaladayada ahniyad aad u fara badan dad aad u faraxsan baan nahay lama koobi karo farxaddii dadweynaha wakhtigaas goobjoogga ka ahaa ku dhawaaqistii iyo dhismihii dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland balse waayaha maanta taagan ee ku gadaaman dalka waxaad moodaa in farqi weyn u dhaxeeyo marka loo eego 1990kii waxaa si xoogaysanaya qabyaaladda colaadaha iyo in la ilaaway dhibaatooyinkii kala duwanaa ee soo maray bulshada Soomaaliland dad wax iska ogol buu dadku waaga ahaa oo nin walba ninka kale walaalkiya أو نولش اللي أقول يهي أما منصب كون اللي أقول يهي أما مقع اللي أقول يه ما أنت نروح صوب حضيت ذكي لبدي المعذير كهاي يسوحكتي أنا وحبي يسوق قوي ولا جح يشون يقف إنه يلاذر هي هذا هضان النهاية إنه يلا ولا جح يشوني إنه قف جرائد وحقوق إنه قرار بحيه ولا جح يشوني إنه إذا علاه دبد الله اللي ولا جح يشوني مجلس قراء قفكم انتو سميسو إن dadku yiraahdaan hadaan reer hebel nahay anagu waxay waxaan doonayna in la yiraahdo waa laga xishooniyay waxay qabyaaladu ku ekayd nidaamka magbixinta iyo dhaawacyada lagu jaraxaadka la bixinayo iyo kaalmada iyo aaska ayay ku koobnay waxa muuqda beriga 1991kii markii SNM loo dhiibay ay dagaaladu dhaceen ee la kala daatay waxa kala daadiyay loolan SNM dhexdiisa hadeer waxa muuqda ififaale loolan kala oo noocyo ba muuqda marka hadii xaqiiqada la sheego waxa weeye shirkii Boorame markii laga yimi maamulkii la soo doortay loolankii oo kala muuqda inay soo xirmaan inay soo celiyaan beelaha reer Sheekh Isxaaq kaasina dani ugu ma jirto dadka ugu ma jirto dalkana dani ugu ma jirto maanta nimxa la qabaa dadkii baa wax bartay dhaqaalihii baa koray beriga nabadda laga shaqeynayay beelaha dadaalay لكن مامل كبي عشور مقادين الدولة مامل كبي ما تشرت مامل وحول بينه كبي إنه هاي سنة iyadoo aynu 27 sano ku dadaalnay dhismaha qaranka ee Soomaaliland waxayna la gudboon in lagu dadaalo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha maanta jira ee koow ka yahay qabyaaladda sii xoogaysanaysa daminta colaadaha taagan lana soo celiyo midnimada bulshada hadafkeennuna ahaado adkaynta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu tirtiray